xaaladda laascaanood ee rasmiga in diibli cid walba ay ku qarqabta marka xamse cabdi barre hadduu taa sameeyo wuxuu ku xadgudbayaa lahaanshiyaha ama sovereignty-ga dhulahaanada Soomaaliland wuxuu ku xadgudbayaa dastuurka Soomaaliland shakhsiyan bay taariikhdu gali doontaa hadalka sharci darrada ah ee meediyaha la isu marinayo ee qabiilaysan ee kicin dadweyne leh ee aflagaada leh ee aan sharci iyo kitaab wax ogol aanay jirin ana ciidanka booliisku wuxuu guddoonsaday inuu la dagaalamo maxkamad lagu horgeeyo qof kasto af sharci darra ku hadla ama kicin ama isku dir qabaa'il halka ay u qabataliyuu hadalkaasi afko kaliya kama odhan isla xalayba waa laga dhabeeyay oo ciidanka boolisku laba dhalinyaro ah oo habar awal ah ayaa ay xabsiga dhigeen oo kala ah gabadh iyo wiil media ku soo gala Suldaan iskama jiire oo labadooduba ay ku hadlayeen waxyaabahani sheekadu haday sidaasi ku sii socoto 18 May waxaan la xusaynaa khaatumo bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxa kala hadlayaa dawladda Ciro annagoo ha al-shabaab oo dhalinyarta sabaara wala oo al-shabaab oo reer Soomaaliland oo muwaadiniina waxaan ugu kalifay dawladda Axmed Ciro in al-shabaab galo al-shabaab baan qarax baan ka soo sidnaa garowga halka ay u qabo haddaba miyaanay ka habboonayn in la xidho in la isweydiiyaa waxa ku sababay maxaa keenay in dhalinyaradani maanta ay cunfiga inta leeg u kala dhex galo misana ay siyaasadii dagaalkii siyaasadeed ay u noqdo mid qabaa'ileed maxaa keenay dhalinyaradani inay caqliyada noocaasi ay ku fikirto kullu cindi finda geel waxa keenay number 1 ka ah waa Suldaan Cadde Gude oo isagu dhalinyaradiisii iyo beeshiisiiba ay kula socotay afxumadii maalintii uu ku hadlay ee ahayd tani ay gacanta habar jeclo ku jirto waxaan qabaa inay jannadaydi geyn laayeen taladii waxay gacanta u gashay helunaar xaqiiqada in laga leexleexdo ma habboona Suldaan Cadde Gude waa in isaga laga dhigaa cumaamada walibana ay ka dhigaan garxati si ay afxumadani uu isagu bilaabay iyo doqonimadani uu isagu bilaabay iyo inuu dhalinyarada qori isku dhiibo uu isagoo suldaana uu bilaabay ay xukuumadii horena kaga xishootay maanta xukuumadda jirta iyaysan kaga xishoone waa in isaga cumaamada laga dhigaa oo laga soo bilaabo wax walbaaba meel laga bilaabay leeyihiin iyo meel ay ku dhamaadaan si aysan waxani maanta jira amba cunfiga jira uusan u sii badanay cunfiga qabaa'ilka isku sii bedelaya marba marka ka sii dambaysa waxay noqotay awal waxaan idin leeyahay tolkii reer Sheekh Isxaaq afxumo nabadna way ka fogeysaa colaadna waxba kaagama tarto afxumo war afxumo iyaysan inooga tagin بريتولي هدي عن كرسي دوني إنه راشق إسحاق ولا بينو كفر أينو كراسين مركا بريتولي عايش كانوا يحكوا إنه ما أنتين إنه حاكك دول تفتفنو ما قرح بنا وحي السياسة بيشا سلطان سبايسته يمن لماذا بيشا وإساقا أي أفكيدا كو هالله يا ما أنت لك السوري بهداية بيشو أيكو قبطا سلطان حسنا حرمال لي إساقونا حرمال دي شرف بنقمودي هاي سلطان كسيدو وغم عرمي تركي وبيشا وغم عرمي أو هالكاسي وعلادة وغم مريكيجي سيداسي أو كريه أو نغم مغنانا يا أفحمو يعي إساقا إيا السلادين إيا سلطان مكالو هبرا ولا إيا كوا كالو راشاق إسحاق إيا كوا كالو سمرونا إيا كوا كالو أو مانتا إياقو reer Soomaaliland caabiya afxumo yeysan marnaba Turkiyo inooga tagin wixii siyaasadii waa siyaasad Turkiga garxajna siyaasad aynu isku haynaa taa baan leeyahay qodobka labaad ee rabaa inaan isku dur istaaga waxa uu yahay isla Xamse Barre oo isagu maanta ku baaqay inuu laascaanood uu imanayo misana uusan ka baaqanaynin xukuumadda maanta talada haysa wax allaale waxay ka tiri ma jirto oo dhagna jarqe umaysan siin oo xataa haday tahay beel caalam kama aysan dacweyn oo ma sheegin in maanta lagu soo duulay isla Somaliland oo laga shaqeynayo Somaliland burburkeeda waxa hogaaminayaana ay yihiin isla Soomaaliyana iyadu ay mar walba taa bedelkeeda ay ku doodo inay u taliso Somaliland taladii ay sheegaysay inay u taliso maanta waa kuwaasi ku tilmaamaya in ay gowraceen wixii lagu yeeri jiray Somaliland baa go'aysa taas hadalkaasi oo deeqaaf markastaba inaga dhankeena ku ah oo madaxbanaanideena ku ah deeqaaf sababtoo ah Soomaaliya inagu marnaba meelaan ka mid ahayn ee waxaynu kala ahayn laba wadan maanta
ugama go-ayne waxa aynu hore aynu u haysanay un baynu kala laamanay oo ahayd in aynu dal inagoo ah aynu u tagnay aynu Soomaaliga xataa barnay Soomaalimadu waxay tahay sharaftu waxay tahay siyaasaddu waxay tahay aynu barnay tiina ay ka abaal dhaceen oo waxaynu ogsooneen ay noogu bedeleen waxba ku sii tiigaalay maaya taasi marka maanta ma ahan xukuumadda talada dalka haysa inay arrimahaasi ay ka aamusto misana ay indhaha ay ka laabato dhanka kale isla xogeeye ku-xigaha wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay inuu si qoto dheer ay arrinka Somaliland ay miiska uu maanta u saaray misana ay karkarinayaan mar laga weydiiyay su'aal ah berbera ma u socotaan isagoo ka hadlaya lacagihii laga goostay la Soomaaliya saas laajigeed ayuu hadalkaasi u yiri taas bedelkeedana maanta Xasan Sheekh iyo kuwa hogaaminayaaba waxay rabaan inay nagu dul iibsadaan Somaliland oo xataa Xasan Sheekh waxa ka suurowda inuu si uga hortago ixtiraaf Somaliland la ixtiraafayo inuu yiraahdo dadka gasa Soomaaliyada kale hal keeno laakiinse Somaliland yaan la aqoonsan oo aan la geyn heerka noocadaas ayaa ka suurooda laakiinse adiga maalinta xaggaaga aad dantaada ka dhex ragto waxa la inoo soo tuunbaraaca dad islaam ay qaxirayaan dalkooda lagu dilaayo anagu ma naga dilayna waaban badbaadinaynaa dadkaasi inagu miyaynu dilaynaa mise waynu badbaadinaynaa nafoodii waynu badbaadinaynaa inaguna danteena aynu raacanayna laakiin kuma bedelanayna inagu dadkaasi isla ictiraaf laakiinse dhulkeena istaraatijiga ayaa sida xaqiiqadu ay tahay aynu ictiraaf ku bedelanayna maantana dal walbaaba cidu dan ka leeyahay dalku dan ka leeyahay ayuu raadsadaa Soomaaliya maxaa yaala Soomaaliya maanta intaas oo sanadoodba waa ay quudinayaan caalamku way ka daadeen si kastaba waa quudiyeen cagahana way qaadi kar laadaay oo isla maanta ugu dambeysay ayaa hoobiyayaal la dhacay safaaradihii Talyaaniga marka dadkani waa dad sidii dhamaantood bay u dhameystiran yihiin xaaraan ka dhargay oo xaaraan cun ah oo midka ku xiga uusan kalsooni ku qabin oo mid kastaaba uu mid kursi ka disha mid kastaaba uu midka kale uu lacag ka disha waa dad isku maqan waa la haystayaal iyagu is haysta marka dadka noocadaas oo kala ayaa maanta inagana la rabaa oo isla iyaga ayaa la rabaa inaynu noqono noocadoodaas oo kale marka haddii ay tahay cunfigani qabaa'ilka boqolkiiba boqol wixii bilaabay halkii ka soo bilaabay waa la yaqaanay waa ka noole waa Suldaan Cabdi Gude cumaamada laga dhigo xaal marina laga bixiyo hadalku sin wuxuu ku hadlay sababtoo ilaa hatta aan wax ka garaabay ma lahan taa bedelkeeda waaba la taageeraaba oo maanta dad buugtooda oo maanta garaacid sagtooda wuxuu ka yahay lama taabtaan marka nin kasto Suudaankiisa oo afxumo iyo nooc doonaba u dhiiqaysta isna lama taabtaan buugtiiska noqonaya taasina waxa ku dambeynaysa inuu gacan iskula tagno ilmaadeen marka sharaftu iyo karaamadu soo kuma jirto wax walbaaba laga soo bilaameen in lagu qofulo adiga say kula tahay adiga fikirkaaga comment nagu la wadaag. Assalaamu calaykum.